بسم الله الرحمن الرحيم كسو دhowow waa casharkeeni barashada Adobe Photoshop programka ugu caansan ee lagu edit karayo ama wax laga bedelo sawirada graphics-ka waxyaabaha kale sida shapeska iyo qayb kamid ah muuqaalada marka ugu horeysa aad programka Photoshop ka soo gashid waxa kugu soo baxaysa daaqad noocan oo kala ah iyadoo ay kala duwan yihiin barnaamijyada Photoshop-ka inagu hadda waxaan isticmaalnaa version-ka CC ama Creative Cloud maybe CS6 CS5 waa isticmaali kartaa si aad noola socotid haddii aad CC isticmaalisid aad bay mataqaanaa u qurux badan tahay marka ugu horeysa aad barnaamijkan soo gashid waxaad arkaysaa daaqad noocan oo kala ah daaqadan waxay u qaybsan tahay menu baris option baris tools iyo waxa la dhaho panels menu bariska ama menuyada daaqadaha wuxuu kala mid yahay programmada kale ee caanka ah ee inta badan ay isticmaali jirtay sida tusaale Word oo kale file buu leeyahay edit buu leeyahay view buu leeyahay waxyaabahaas oo dhan maaha waxyaabo kugu cusub laakiin kuwan wuxuu u shaqeynayaa sidii hore qaab ka duwan oo programkan khusaysa tusaale file menu haddii soo furno programmada kale new file ina soo furtid open file mid cusub inaad mataqaanaa soo furtid oo hore u jiray oo soo open gareysid ama soo furtid inaad xidhi daaqadihii inaad soo import gareysatid xog tabska ugu dambeeya ku shaqeynaysay waxyaabahaas oo dhan ayuu leeyahay programka halkan ku jira bridge ku qoran tahay waa program la shaqeeya Photoshop-ka oo sawirada lagu group gareeyo wuuna kugu jiraa edit-kan waxa ku jira waxyaabaha caanka ah clipski sida cut iyo copy waxaas oo dhan ayaa ku jira tusaale ahaan mid walbana waxa ku hor qoran shortcut keyboard-ka tusaale marka wax undo dhahaysa ama dib uga noqonaysid control plus shift weeye markaad cut gareynayso wax jaraysid control plus x saas oo kale paste-gi waa control plus v image markaad tagtid wuxuu khuseeyaa image-ka marka furan ama daaqada marka furan waxa ka bedeli kartaa image-ka size-kiisa iyo waxyaabo kala duwan oo kale markaad taagan tahay layer Photoshop-ka waxa loo kala qaybiyaa waxa la dhaho layers layer-kaad markaad taagan tahay markaad doonaysid wax ka bedeshid ayaa layer-kan soo furaysaa tusaale sidoo kale inaad duplicate gareysid oo laabsid layer-ka style-kiisa wax ka bedeshid rename gareysid layer-ka magaciisa ama lakabada Photoshop-ku ay ku shaqeyso dhan aad wax ka bedeshid type-ka ayaa yimi waa wax alaala wixii qoraal ayuu quseeyaa orientation-ka ayaa kamid ah wax alaala wixii fartaada iyo qoraalka ayuu quseeyaa select-gani wuxuu isna quseeyaa layers-ka ayuu quseeyaa marka wax ka bedelaysid filter-kani waxa ku jira filterro kala duwan oo Photoshop-ku leedahay oo caan ah ana kamid ah inaad ku bedisid ribanaanta image-ka tusaale ahaan inaad ku dartid waxyaabo noise ama shucaaca inaad ku dari kartid waxyaabo sida biyaha kala qulqulaya sida daruuraha oo kala filtersku marka waxyaabo aad u caan ah oo ay Photoshop-ku caan ku tahay oo tool weyn ah view sida programmada kale wuxuu kala mid yahay inaad aragtid tusaale ahaan zooming-kii oo kale inaad marna image-kaaga weynaysatid marna yareysid sidoo kale waxyaabaha mastarada iyo waxa la dhaho guides oo ah hagayaasha marba eegaysa wayda meesha joogtid kugu hagaya inay ku soo saaraan marka daaqadaha marka qaarkood weydid ayay ku soo saarayaan view-dan iyo sidoo kale inaad documentiga marba ku eegtid size-ka doontid 200 ama 100% sidoo kale halkan waa isticmaali kartaa view-gi kugu jirta dhankan hoose aad ku qori kartaa tirada rabtid window ayuu waa toolka ugu weyn wuxuuna ka kooban yahay dhammaan daaqadaha Photoshop-ka uu ka kooban tahay waa midka kuu soo saaraya tusaale hadda daaqad kamid ah weydid Photoshop-kaaga aad ku dhex jira dooranaysid ama aad ka qarinaysid tusaale haddaan weyno toolska mid kamid ah hadda waxaan weynaa tusaale ahaan channels-kii oo kale markaynu ku dhufano halkan ay ka soo baxeen channels-kii oo dhan tusaale haddaynu weyno adjustments halka ay ka baxaan dib ayaynu TikTok soo saarnaa saynu adjustments-keeni u helno marka Windows-ku waa daaqada ugu weyn ee toolska daaqadaha weydid oo dhan aad ka helaysid waxa yimi wax la dhaho options panel waa halkan aad aragtaan options-kan panel-kan wuxuu la shaqeynayaa toolska aad marba joogtid ayuu la shaqeynayaa tusaale haddaan tago selection toolka marquee toolka waxaas oo dhan wuxuu isla bedelayaa toolka hadba markaad joogtid ayuu isla bedelayaa tusaale haddaan text tago wixii muxuu isu bedelay textiga caadiga inaan farta magaceeda bedelno farteena burburaysiin karno italics ka dhigi karno ama chiefin karno sidoo kale aynu bedeli karno size-keeda marka options panel-kan wuxuu isla bedelayaa marba toolka aad markaa halkan joogtid ayuu isla bedelayaa billahi tawfiiq